jaaliyada degmada shaqaaqadu ka taagan tahay ee garsoore ku taalla magaalada Kalkacayo ayaa shirey habeenkii xalay ku yeesheen Grand Royal Hotel ee magaalada Nairobi waxay cambaareen dusha uga tuureen xukuumadda Puntland iyagoona sheegay inaanay xaafadda ku sugnayn xarakada al-shabaab ee ay tahay dariiqooyin kale oo loo soo marayo haddaba ugu dambeyntii waxa ka hadlay mas'uuliyiin sarsare ay ka mid yihiin Dr. Abshir Ismaan Qayliye iyo Professor Ciise Maxamed Guraase meesha tanado isugu timid waxaan rabnaa mowqifka tanada in halka ka jeediyo dadka deegaanka hadii dhibaato ay ka dhacdo dhexdooda odayaashii salaadiinta iyo xuqaashii waxgaradka ayaa dhameyn jirin waxaan rumaysanahay ciidamada oo faroola ku dhaartay in dhulka ka carrigidiyo garsoor ma ahane waxaan maqlahayo iyo ciidan amar ka qaadanaya midna ma jiro waxaan leenahay shalana wuxuu lahaa Soomaali nabad baan ugu yeerayaa Puntland waa nabad hal lagu dhigo 720 teknika ayaa lagu soo weeraray xaafadda garsoor oo 3 teknika ay tahay taangi inta kale ay tahay artillery iyo PM iyo wixii la mid ah waxaan anagu u sheegaynaa adduunka genocide-ka uu ka sameeyay faroole xaafadda garsoor taariikhdu ma cafin doonto albirru la yubla biriga wanaagu ma gaboobo wadambu la yunsa dambigana lama hilmaamo marka ninka dambiga galay ayaama ha jooga laakiin dambigu waa soo qabanaya annagu waxaan u sheegaynaa beesha leelkasa haddaanahay ama tanadanahay dadka deegaanka nala degan wax allaal oo shacabka ah waxaan u qabna ma jirto dhibaatada annagana haysataa ayagana waa haysataa hameen kasta la laaya min boosaaso ilaa Gaalkacayo hameenan waxgaradkooda intellectualkooda iyo odayaashooda iyo salaadiintooda aan la nin iyo saraakiishooda ma jiro laakiin hadda ka hor ma ay dhicin ciidamo hubaysan oo dawlad magaceed sheeganaya dad masaakiin xaafadood inay ku soo weeraraan intaas oo teknika ilaahay wuxuu yiri in Allah la yansuru daalimiin daalim ilaahay wuxuu ilmayo meesha la yiraahdo garsoor shabaab ma joogo ayana waa ogyihiin waa markii afraad oo ciidamada security-ga Puntland lagu magacaabo ay soo galaan oo masaajidada ku laayaan oo dugsiyada kala baxaan oo muxuu ahaayeen nin allaala ninkii dhaqaaqay ay toogtaaniin ayaga waxa ka dambeeyaan haddana wax yiraahdaan waxa ka dambeeya dad halkan jooga dad aan garanayn anagu meel ayaga garanaya anagu ma garanayno tan la yaab way hadda anigu waxaan u soo joogay Puntland oo haddii wax ka dhacaan salaadiinta uqaasha waxgaradka isku meel looga soo wada jeeso oo dhibka la tirtiro waxa soo baxay ciidan aad loogu faano la yiraahdo ciida casbay soo rogayaano naaga iyo caruurta ayay gumaarka iyo caluusha ka soo saarayaan shabaabku waxa kale oo aanu hadda maqaaligu ah arintani waxay ka dambaysaa raadgadasho inay tahay maqaal waa raadgadasho waxay ugu maqaalaan dhib fara badan oo Gaalkacyo waxgaradkii wadaadadii aqoon-yahanadii ganacsatadii dadkii la leynayay raadkeedii wuxuu galay xagee galay faroole galay sida aan xog ku hayno wuxuu ugu raadgadayaa dhibka faroole iyo xukuumaddiisa iyo inta asaga ka hoos shaqaysa ayuu dagaalkan ugu laakiin dhinaca kale tan raga jooga waxaan leeyahay war dadkii la laayay labada dhinacna weeye xukuumadda faroolaha ka dambeysay isu ka keenay faroolaha meesha ka cayrine ugu dambeyntina waxa soo afmeertay marwaxasna dagaalkii labada adduunyada wuxuu yiri baalay warcaa wax gal loo socdo John Wilson markaas wuxuu yiri doqonna loo sheegay baa ninka ragana uu garanaya maanta meesha aanu ka hadlayno nin walba uu garanaya uu dareemaya dhamaantayna marka taas ay noo soo saartay inaanu shucuurtayada cadayno oo mowqifkayga maanta aanu ka hadalno waxa weeye anagu horta inta uu yahay faroole ninka la leeyahay madax horta xaal bala qaadan mayna xaajana la gali mayno mana ba aqoonsan dawladda Puntland loo sheegay mid labaad waxaan u sheegayaa shacabka walaalaha oo wada degan oo loogu talagalay in la isku dhufto anagu shacabka iyaga waan jecelahay SSDF iyo SNDU bay ahaayeen wixii shirka samaystay wixii dawladnimada dhistay wixii wadanka xoreystay wixii u jajaba u indha beelay bay ahaayeen laakiin nin aan waxay gashay iyo waxay guda dawlad midna aqoonin hadduu kursigu ku fadhiistay waa tii loo yiri niman talin jirin hadduu taliyo niman tagi jirin baa taga marka ilaa uu taga anagu ma badan waxaan la gelin Ali Ismaaciil Ali Home Cable TV Nairobi